عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkaas waxaynu ku baran doonaa qaabka telefoonkaad ugu bedeli lahayd icons. waa maxay icons? iconada dabcan waa waxa telefoonka ku yimaada ama barnaamijyada ama applicationada ku yimaada telefoonka ama aad ku shubatayba. qaabka designka sida aad adiga jeceshahay ayaad u bedeli kartaa. halkani waa wax ka baratay. haddii aad ku cusubtahay channelkan fadlan nagu soo bir oo subscribe inoo saar, like iyo wixii raaya noogu reeb xagga qaybta hoose. waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. dabcan icon waxaa loo yaqaanaa waa tusaale kale icon. waa maxay icons? iconska dabcan waa midkaan oo kale. icon waa midka telefoonka gacanka laga waco iyo contactska iyo messageka. waa icon ama application sida u taqaanidba. marka iconada dabcan waxaan oo dhan waa icon. marka qaab noocee ah ayaynu designka telefoonka ku yimid aan ka bedeli karnaa design qurxoon. dabcan maalin walbo designkan baad isticmaashaa. cashirkii ka horeeyay waxaan kusoo qaadanay qaabka walbarka loo bedelo. dabcan telefoonkan isticmaalo ma aha iPhone ee waa Samsung. dabcan naqshada designka ama walbarka inuu saaran waxa weeye qaab qurxoon. waxaa loo maleynayaa in uu yahay iPhone oo kale. marka waad bedeli kartaa haddii aad rabto. cashirka xigay fadlan daawo. waadna ku mahadsan tahay la socoshada muuqaalkan. iconska waa dabcan waa kuwa qaabkaynu u bedeli lahayn qaabka designka telefoonka. waxaad tagaysaa settings, dabadeedna waxaad imaanaysaa meeshay ku qoran tahay wallpaperka imaaw, kadibna ku dhufo. waxaad ka dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay explore more wallpapers. hagaag markaad ku dhufato dabcan halkan waxaa noo soo baxaya wajahadan. dabcan waa wajahad dabcan laga soo dejisto xagga wallpaperska iyo iconska. icon dabcan maanta wuxuu ku saabsan yahay cashirkeena waa icons. haddaynu aynu galno iconska dabcan halkani wuxuu inoo keenay waa icons. dabcan iconada dabcan sidaad ku bedeli lahayd ama meeshaad ka soo degsanaydo halkan. markaad timaado xagga iyo wallpaper, explore more wallpaper markaad timaado dabcan kuwa aad ujeedaan waa iconska. dabcan kuwani waa lacag, waxay joogaan waa lacag free maaha, laakiin waxaad ka helaysaa dhanka freega qaybta feature markaad ka tilaado xaggay ku qoran tahay top ay taabanaysaa. waxaad arkaysaa qaar yaroo free ah iyo qaar oo lacag ah. marka freega ayaan eeganaynaa, mid baan kasoo dejisanaynaa. marka qaabka uu isu bedeli doono telefoonka iconska noogu jira aynu bal eegi doonaa. marka hagaag haatanna waxaynu soo dejin doonaa icon qurux badan, mid qurux badan insha allah. marka dhowr xab baa ku jira. waxaan oo dhan aad arkaysaan waa free baa ku qoran. midka waa free, kan xitaa waa free waayo lacag maaha. marka sidaa baad ugu samayn kartaa. marka aad usoo dejisan kartaa. marka mid fiican baynu raadin doonaa. hagaag okay, midkaan ayaynu soo dejin doonaa. waxaad samaynaysaa kadib waad soo dejinaysaa download. markuu soo dego bal isla marka hore buu kasoo degayaa. waa haddii aad haysato qad aad iyo aad speedkiisa u sareeyo. marka designkiisa sidan buu isku bedeli doonaa xagga iconada telefoonkaaga. marka waxaynu leenahay apply. markuu kuu soo dego ha ka bixin, waxaad leedahay apply icon.
hagaag iconada sidaan ayuu isu bedeli doonaa. Dabcan waad aragtaan farqigii hore ee u dhexeeyay iyo hadda bal eeg wadsaan dabcan aad iyo aad u qurux badan. Marka sidaas ayaad u samayn kartaa, waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Dabcan waad u jeedaa qaabka hadaydii hore muuqaalka hore siduu ahaa iconka iyo hadda siduu yahay. hagaag waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay ama muuqaalkan aad ka heshay, fadlan inoo like garee, share, subscribe inoo saar. Xagga wixii raayana waxaad nagu reebtaa xagga commentiga. waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan muuqaalka xiga. Sidaas iyo nabadgelyo.